mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo bayradnimadiisii 50 sanadood horteed maanta la soo baxay ayaa intuu diyaarad ka kiciyo duulin ku soo wareegi Hargeysa iyo agagaarkeeda dib u soo fadhiisin isagoo oo kursiga pilotka fadhiya ilaahay igu simad baaba hadaale waana fan Somaliland waa guulaha ay ku faanto weeyaan talo Xasan Sheekh baaskiilad ma fuuli kara ilaahay baa ma hadaale waxaan horumarkan wuxuu ku yimid dadaalka dadweynaha Somaliland ay sameeyeen 34 sanadood ay ina soo dhaafay waxaan anigu marxaati ka ahay bishii July 1991 wafdigii ugu horeeyay ee United Nations ka kormeerka halkan uu imanayay ayaan hogaaminayay waxaanu ka soconay headquarterka UN-ka Geneva iyo xarumaha kale ee United Nations ku leeyihiin anigu maalinta Hargeysa madaarkeedii aan arkay foolxumadiisa iyo burburkii gaadhay iyo boholihii ka qodnaa iyo diyaaradihii ku qalibnaa ee meeshan daadsanaa iyo taangeedii jajabnaa ee meeshan yaalay anigu ismaan lahayn airportkaas ayaa dib loo hagaajin karaa magaalada Hargeysa dib loo degi doonaana isma baan lahayn maantana alxamdulillah madaarkii waa kaas oo waliba ilaahay igu simay inaan madaxweynihii Somaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo bayradnimadiisii 50 sanadood horteed maanta la soo baxay ayaa intuu diyaarad ka kiciyo duulin ku soo wareegi Hargeysa iyo agagaarkeeda dib u soo fadhiisin isagoo oo kursiga pilotka fadhiya ilaahay igu simad baaba hadaale waana fan Somaliland waa guulaha ay ku faanto weeyaan talo Xasan Sheekh baaskiilad ma fuuli kara marka waxaan leeyahay wadankeena aynu dhisano wadankeena hagaajisano Xasan Sheekh oo meel fog cidaha ka doonay hadaad walaal doonayso saaxiib doonayso Somaliland baa ku noqon karta mid aad ku faani karto laakiin se kale caawiyo Somaliland la jajabiya waqti ay iskaga luminin ee ayar jaarnimo wanaagsan ku iimaan qab ilaahay baa mahad leh madaxweyne hambaliyada qaranka aad madaxweynaha u tahay iyo shicib weynaha ayaan hambaliyadiisii ku soo gudbinayaa